بسم الله الرحمن الرحيم وسلامتي دمان شعبك الصوماليين مeel kasta aad joogtaan waxaan leeyahay habeenku haydin wacnaado imri dheer iyo caafimaad baan idin rajaynayaa Soomaali weyn ku soo dhawaada barnaamijkeena midnimo qaran iyo anigoo Cabdi Fataax bariya kala maqlayno waan idin basaasay bulshayahay ma nabadba barinay ma barideen soo dhawaada shacabkayga caashiqa meel kasta aad joogtaan waxaan u maleynayaa inaad si wanaagsan ii maqlaysaan aad iyo aad soo dhawow waxaa uu samsam aad baan ku salaamayaa soo dhawow dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan guuriga gobonimo aad leeyahay waa barnaamijkeena midnimo qaran iyo caawa waa run ayaamaha waan idinka yar mashquulay wuxuu yiri ninkii jiray madama adduunyadu dar allay u dhiman tahay miyahayd madama adduunyadu dar allay qabyow tahay aad baan ku salaamay xasan mooga xuseen soo dhawaada shacabka caashiqa meel kasta joogtaan barnaamijkeena caawa iyo midnimo qaran faafiyo oo inoo sheer garay gaarsiya dhammaan shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad baan idin salaamayaa hawlaha adduunyadu iska wuxuu yiri heesta maxay samatar hawlaha adduunyadu waa kuwa is haysto aan kala harayno hambiyo farx ninba waa halkiisii habeen dhaladninkii iyo kii nasiibku haray wasaareer socdaan oo kala hadhina maayaan aniguna haweeyay naftaydii habeenadan halis bay ku sugantay hawlaha adduunyadu hambi iyo farx ninba waa halkiisii soo dhawaada shacabkii caashiqa meel kasta joogtaan dalku siduu ahaan jiray iyo maanta siduu yahay muuqaalka aragyaha maqalkaba u kala ron dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waan ku salaamay gudoomiyaha ururka midnimo qaran Jamiilo Jaamac Aadan Jibriil soo dhawow walaashay soo dhawow guuliyo gobonimo dhammaan shacabka Soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين دمان شعبك الصومالي ميركسو جوجتان وسلامتين waxaan doonayaa caawa inaan wax yar taabto oo aan insha Allah biidnillaahi kariim tala walaalimana halkan aan u mariyo kana hadlo guulaha iyo sharafta iyo karaamada iyo hanaanka iyo sinaanta maanta shacabka Soomaaliyeed iyo barta inuu higsanayno iyo waagii 19 barigii dad qalatadu ina heshay meeshii aynu ka soo noqonay war Soomaali way cuntay oo isbahdishay oo isbaacsatay oo reer buu la dagaalamay oo dariska la isku diray oo meel walba janan dhiigyo cabo qorisi tabagalay magaalo kastana askari baa weeraray dadkii Soomaaliyeed ee walaalahana cuqdad iyo cunfi iyo xumaan iyo liidnimo iyo saqajaanimo iyo diin la'aan iyo kufri iyo dhaqan xumaan la baray intaas oo dhibaato ah ayay ummadda Soomaaliyeed dhaxashay waxay dhaxleen ceeb waxay dhaxleen fawaaxish waxay dhaxleen bahdil waxay dhaxleen ummadda Soomaaliyeed musiibo kasta wuxuu yiri dhibtayaal adduunyada inta badan dhadhamin oo dhaaya saarna yaabkee damiirkii maxaa dhibay maxaa dhoohay aadmiga dhaqankii maxaa helay ilaah baan ku dhaartay dadku dhalan awow iyo abtir weeyo dhalasho waa qoys dhamaantii dhab habreed wadaagay maxaa la iska dhibay haddii aan la dhiidin waxa aan dur sugaynay kali haata noo dhiman dhulka oo la qaatiyo dhalaankood la iibsho iyo haweenkood la dhiibo la dhibaatso weeya dhagta maqalka ceebtii laga dhowrsan jiray oo lagu dhaashto weeya kollay haatan dhiman oo dharka waa iska xidhanay ma dhinaa colaadaha ma dhisnaa wixii dumay daawac bayna gaadhay dhaymo ma isku dayna war waa intoo la dhaafo la dhaqaa dunuubtee ma isdhiibnaa caawo rabbi ma u dhawaanaa ahdi meel ma dhigana si kasta waynu u baaba'nay si kasta waynu guriga way qaxnay waxaanu gaarnay Soomaaliyeed heer qof Soomaaliyeed la yiraahdo waa qaxooti isagoo dalkiisa jooga billaahi calaykum ilaahi baan idinku dhaariyay qof Soomaaliyeed gurigiisa jooga oo dhulkiisa jooga deegaankiisa jooga oo leeyahay waa qaxooti barakaca yaa soo barakiciyay xagee laga barakiciyay shabeelaha hoose laga barakiciyay xamar buu ku qaxay xamar baa laga soo qaxiyay Kismaayo ku qaxay Kismaayo laga soo qaxiyo Boosaaso ku soo qaxay Boosaaso ka qaxayo Garow u qaxay garow ka qaxay burco u qaxay war miyaanay jugjug meeshaadii joog ahayn ilaa ay hadan qofkaasi miyaanu xayndaabkiisa iyo gurigiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa ku dhex jirin eegay Soomaali qof Soomaaliya oo Soomaali dhalay oo la leeyahay Boosaaso qaxooti ku yiri qof Soomaali dhalay oo la leeyahay Hargeysa qaxooti ku yiri qof Soomaali dhalay oo la leeyahay Muqdisho qaxooti baad ku tahay ajnabi baad ku tahay oo marti baad ku tahay war miyaana wax walba dhaxlin ceebta adduunyada dhan meenan kumban meenan muquurin
miyaynan ku qubaysan ceeb iyo fawaaxish iyo dhaqan xumo miyaynan ku qubaysan ummadda Soomaaliyeed dadka yaa kala dilay yaa isku daray ummadan yaa ceebtana ka shaqeeyay gacanteena yaa ugu gowracay mindida ninka daabka haya waa Soomaali ilma xayawaano aqligeeni iyo garashadeeni iyo damiirkeeni wuxuu noqday reernimo maanta physical buu noqday reerku physical laakiin waxaan ilaahay ugu mahadinayaa maanta inay dhamaatay wax kasta oo la marsan jiray haday kaar qabiil tahay haday kaar danaysta tahay haday kaar kooxeed tahay hogaamiyad kooxeed hogaamiyad diineed burcad diimeed midka kaar kasta waa la soo isticmaal maanta wax haray haba yaraatay ma jirto ummadda Soomaaliyeed doorbiin bay qaatay أو كيالا أفرتن دكرية بيكشتن دتكو سجال دكرية لبعتن دكرية بلا أفرتن دكرية بيكشتن إلى تبنشير كمانتا أو كيالا وين بيوجرو توجا كاركو إيجي أنت حنوصل إيه بكان صعد كنا وين ودو عيننا عاوة وين ودو عيننا هدي هدايا وقرنت هنا ربي هسوا هذي إلهي ما نقول برينا إن وراها صومالية بكان صعد كاي سوا هذا اسمان هدان هدايا وقرنين إيجي ربي هنا دافيو waanu daalay shacabkana way daaleen umadana way daashay waa la dhibtooday rafaad oo dhan baa dhacay waanu quusanay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay war markaad yaabtaan iigu soo noqda Soomaalidu way yaabantahay wayna noqon laaday ilaahay baan idinku dhaarshay raxmadda ilaahay wax ka qiimo badan miyaad garanaysaan wuxuu yiri dhowr ilaah miyaa jira ma wax rabbi loo dhigo lagu dhaartabaad garan dhowr ilaah miyaa jira ما واحد ربي لورد يقول له قدر ارتبط كرن سوماليدو لبد دين بيلاده لبد دين أي سوماليدو لاده ولي بمد بكوي ديني ودين الإسلام كفرقان ككتاب كنا جامع فرقان كاود نبي سنوه محمد عليه الصلاة والسلام دين كلنا ولاده سوماليدو أو ولي بقى كأدك دين تنا إسلام كأدك سوماليدو وأدك ودين تلي هذا قبيلة دين كأدك سوماليدو ملها diintana dhaqan ahaan bay u haystaan qof kula tukanaya oo kula soomaya oo kula salaadaya oo masaajidka afkoora kugula jira oo marka aad baxdid ku dilay reernimo ku dilay Soomaali baa laga helaa qof diin islaam sheeganayo qof islaam dhiigiisa galay Soomaali baa laga helaa qof islaamnimo sheeganayo oo soo xajaya oo ummad Soomaaliyeed xaqoodii iyo dhaqankoodii iyo maalkoodii dhacayo Soomaali baa laga helaa ilaahay baan idinku dhaarsay hogaamiye kooxeedada dhammaantood wada xaaji baa liyaa mid aan soo xajiina ma jiro mid laga aqbalaana ma jiro saawa see laga aqbalaya nabigeena kaleey salaatu salaam wuxuu yiri ninbo arkay gacmaha kor u taagay asxaabtu sheegay wuxuu yiri ninka ma aragtaa ducadiisu samada koobaad dhaaf mayso maxaa dhacay baa liyaa rasuulullah waxa la yiri nabigu wuxuu yiri kaleey salaatu salaam wuxuu xiran yahay waa xaraan oo wuxuu cunayaa waa xaraan oo wuxuu soo cabay waa xaraan oo dharkan uu istaa waa xaraan oo weesada ku soo weesata waa xaraan xagee looga aqbalaya salaad war Abdi Faaruq wuxuu tagay xajka yaa ka aqbalaya xajka yaa ka aqbalaya Muuse Suudiye wuxuu xaaji baa liidahdaa war kuwii dhiigeena cunay ee shacabkeena cunay ee habeen imaanimada Soomaaliyeed isku dirayad xaaji u taqaan war inta qoomkani u talinayaan Abdi Faaruq Muuse Suudiye wuxuu Abdi Qaybdiid Faroole iyo kuwa la midka iyo Muuse Biixi oo maadra ummad Soomaaliyeed laayay oo mid iyo laba iyo saddex ahayn intaad geesi ka u taqaanid أنت أتقانيد كائن شرف ليه أنت أتقانيد كائن ولي صوت ظاهريه والله مد الصومالي ضيع عكب حمش مصيبة أنا ولي جد ويكوشريسا ما أنت إنه وجوده هاي الصومالي ما أنت إنه وجوده هاي أو جرشوا يعقلي إن لجو تصارق عطا أنت وين سوقان دي بعتك استودون كلجو تصارق عطنا وإن وجود عضي الصومالي هذا ما أنت عيدنا جا قون بدني مشوت ورد اللي جو تجابيه الدولة اللي عندك الصومالي على جهية إيجي ورهدي مايه حاجة كو توبت كانن قاربا كورانا يو توبت كانن حاجة كو توبت كانن ورمي أركت يجو أمة الصومالية أي حوج كو هيستان كل جوستين وريجو ولا ورحق وكن ورسوك عليه ولالاتين ورد وحوي وضد الشباتين ورقوس يقراباتين والإلهي بان إذن كل دار شيء ورمي أركت المصبيحي يو عبد الفاروق يو أحمد مدوبي يجو ولا تذكر وضد ولا إهل باتين يسوك عليه مياد أركتين خوارسمية تيكو دعدي ميد كحن باين نقول عيسو حبشي نقول جيسا حبشي أوريسا أو عنشير دافي دعنتا وهبين يمانيا إرسي كلا هيسن عنشير دافي والله كو قديان أو كو قرعدان أو كو عشيان قيامها ليسو قلدوان اندها يانا صارينو
habeen iyo maalin cajeel daafi cunaan iyo bun liyada bunaaweetad oo dalkooda ka baxa cabdifaaruq markuu tago Itoobiya Soomaaliya inoo sheer garayo gaarsiya ilma xayawaan iyo kuwa daalimiinta maxamed saalax cabdalla camay waa ku salaamay saaxiib bataankayga wuxuu yiri Soomaaliya waxaan tagnay Itoobiya aan tagnay waxaan ka soo wada hadlay arrimaha ganacsiga kulaha ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada war ilaahay baabana kala guray rabbi baabana kala guray anaga iyo xabashiye maxay tahay anaga isdhexgalkaan isdhexgalin ilaahay baabana kala guray laba dal buuna kala siiyay laba luuqadood buuna kala siiyay ganacsigana dhex marayaana muxuu yahay qaad bay noo keenaan darooga noo keenaan darooga wax aan ahayn Itoobiya nagama soo gasho boosaaso iyo garowe iyo gaalkacyo iyo ilaa tuulooyinka daroogada tagta qaad baa la geeyaa lacag bay naga qaataan wax ay nagu bedelaan ma jirtee maxay tahay ganacsiga naga dhaxeeya anaga iyo xabashi war walaalnimada naga dhaxaysa maxay tahay wanaagna dhex maraya muxuu yahay xagee baan iska soo galnaa anaga iyo xabashi qaadkay keenaan qaadka hareeriga bay boosaaso ilaa qadar iyo xaafuun geeyaan cabdiwaligaas cabdifaaruq waxa la yiri warniyowga qaadka nin dhalinyaro ah warsanaya arinta qaadka maxaad ka dabacday hadda adeer anigu qaadkana ma cuno hadda haye wax iga galayna ma jiraan kaas la leeyahay mas'uuliyad ba saaran oo madaxweyne oo dadka qaarkood niic ila soo doontaan oo dhahan cabdiwali iska daa maxaan daayaa waa daaline qaadka ma cuno buu yiri anigana wax iga galay ma jiro oo hadda adigu qaadka cunin qoysaska garowe joogay kuwa boosaaso joogay ma qadaama dirgaanka ah ee lacagtoodii xabashidu qaadanayso miyaanay xaq iyo mas'uul miyaad ka hay miyaad hogaamiye u hay miyaad gudoomiye u soo dooran miyaad inta muqdisho ka timi Mareykan ka timi Soomaaliya waxa weeye timi oo ra'iisul wasaare noqotay aan Puntland imano reer ku soo noqon ilaa Puntland waa reere adigoo ra'iisul wasaare Soomaaliyeed miyaad Puntland iyo reer ku soo noqon maxaadna tartay wuxuu yiri labadii tukow shalay naga tago maxaad soo tarteen huutiya haatow maxaad soo tarteen bal maxaadna tartay cabdifaaruqow Puntland maxaad tartay aan musuq maasuq qabyaalad reero la isku diro ba iyo hoog geeri iyo naxdin iyo faqri iyo gaajiyo sixir bar waxaan ahayn miyaa Puntland tartay sharaf miyaad noo soo hoyay ma karaamaadna tartay dadka inaad nagu dirtid oo ummadda Soomaaliyeed nagu dirtid oo la yiraahdo Puntland waa itixaan Puntland war shacabku waa shacab fiican war shacabka Soomaaliyeed waa masaakiin shacabka Soomaaliyeed waa dibane kuwa Hargeysa jooga xoog lagu haysta oo kuwa Garowe jooga xoog lagu haysta oo niman daalimiin oo xabasho u raran baan haysta haddaanu iska kicin weynana cid naga kicinaysa ma jirto weynaanu gacan wax kaga qabanaa waxa la yiri munkarka afka kadib oo niyada kadib oo gacanta kadib oo haddaad gacan wax kaga qabato gacan wax kaga qabo meeshii ugu dambeysay bay maraysaa shacabka Soomaaliyeed inay niyada ka nacaan Garowe maanta lama banaan bixi karo oo Hargeysa lama banaan bixi karo xabad baa la dhacaya xabashi baana daba fadhida eegi Soomaaliyeed war dadka Soomaaliyeed walaalaha war qaxootiba shacabka Soomaaliyeed waa qaxooti 30 sano qaxootiyiin wuxuu yiri abwaankii heestii Seenabciga qaadisi dibka laguma waaro dhaxal looma yeeshay waa laga dhamaada war maxaa anaga nagu khasbay inaanu 30 sano inaanu ku dhalano qaarkayo ay ku dhashaan burbur qaarna dawladba aanay arag oo markay sidaa u dhasheen indhahaas u kala qaadeen oo uurka hooyadba soo dhaafeen ay dawladii dhacdo ilaa maanta aan qaxootinaha maxaa nagu khasbay ma aayad baa nagu soo degtay ma xadiis baa nagu soo degay ma arar rabbi baa nagu dhacday maxaanu bilaa dawlad u nahay maxaanu sharaf aniga xabashi suuga sharaf badta Ethiopian uraya suuga sharaf badta soo wadan kasta safaarad ugu yeeshaa si aniga dumarkaygu u dayacan si ragayga iyo dhalinyarada iyo Soomaaliyeed haliyay Soomaaliyeed u dayacan si matimir xabaal talbaan naano eegi matimir xabaal talba shacabka Soomaaliyeed sharaftii meeday habeen dhawaad waxaan ku soo qoray page-kayga sharaf ka horeysay siyaad barre ma jirin mid ka dambeysana ma jirin dawladii militariga ahayd qaar badan baa niic soo qoray xanuun dad xanuunsan oo bukaan socda wallahi sharaf kama horeyn militarigi oo siyaad barre aabasiyaad ilaahay ha u naxariisto jannatu firdaws ala uu ku jira insha Allah dambiga uu lahaa iyo wuxuu u geystay oo dhan ba idinka ka meeray daayeer buu meel ku hayay daayeer dad uraya oo xaasid ah oo daalimiina oo dhiiga shacabka u baahan ayuu xabsi ku hayn jiray kuwii waa maanta shacabka Soomaaliyeed haysta wuxuu yiri siyaad barre Allah u naxariistay dal baan ka tagayaa laakiin dad ka tagi maayo wiil run bay noqotay wax alaali wixii jabhadii cararayay iimaan la'aan iyo cunsurinimo bay u ordayeen wuxba
US حمر بيجي شيء دكم داكم بكدك ضد نول يوحد موت نول بس أقول لك أنا موغوي بيجش SSDF بري بيسوقش محل فائدي وح أنجري يحمان نعيب أحين أول فائدة ما تقرأ نسام ورمات يا دولة دي ما دهور تاجن ورشرفت يا مان تهور تاجن وركرامة يا هور تاجن يا دين تن هور تاجن دين تني معاند يا هور تاجن والله تب هذه بهور تاجن SNM يا USC يا SSDF هذا هو يستطيعون دينتين والله وينوليهم أو بالله وينوليهم أو تالله وينوليهم أو هرجوا من سوالي وجرا فيصل أبروني خير الله قصيه نكا أضيع فيصل أبروني كترسن أركم من مقرن أو ولي ما دحض وقصر رسا يا آدم جامع كاهن لبض أني أقويهم كا لبض هو ويكهلا ولي فيصل أبروني وحب حي هرجوا ميسي والله هرجوا ميسي ولي وجرا أو SSDF حب أنت عرانين بيحبشوا قلنا وSNM يو SSDF يو US وحب حبشوا قلنا هب الأساس يدلكين سود دمية بالي وأنا دميين وأنا بابيين وأنا قحيين أو واحد شراء أفرتن كن أو لن يرى أو قحوتين ما كل شيء إلهينا على دي سوكوسو دكتبان كوري وحي أمد الصوماليات لقويو ذا كتليا هبلا الصوماليات يدنير الصوماليات أنا في صوماليا أقون runtii aad baan u caroon jiray markaan arko qof Soomaaliya af Soomaaliya ka rayn dib markaad u raacdina xerada dhadhaab ku dhashay ama xerada Yemen buu ku dhashay ama xero ku taala Tanzania ku dhashay ama xero Uganda ku taalo ku dhashay ama xero Ethiopia ku taalo ku dhashay yaa halka gaarsiiyay in ummadii Soomaaliya hooyooyinkii Soomaaliyeed kaamam qaxootiga ku dhalaan xilligan aan maanta joogno Jarmalka iyo Faransiiska iyo Talyaaniga iyo Sweden gabdho Soomaaliyeed oo uur leh oo waxa weeye ku dhala xero qaxooti baa jira eegay oo la leeyahay wiilkaaguna waa sharci buu wadankan ku leeyahay ama Sweden ama Faransiis adiguna waad noqonaysaa meeshaad ka timi Spain iyo Talyaani iyo meeshaad soo martay waad ku noqonaysaa hooyo iyo ubadkeeda in la kala kaxayo oo laba baasaboor kala yeeshaan yaa halkaan gaarsiiyay ilma xayawaano xaqaanu ku aadamayna oo wallahi waa ku dhimanayna oo billahi waa ku dhimanayna anagoo xaq ku taagan oo ku jihaadayna baan ku dhimanayna haddaanu nahay midnimo qaran iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed xalaasha ee gobonnimada iyo sharaftu ka go'antay wariyaha eegay bal gabadha qaxootiga ah ee uurka leh ee kaam Jarmal ku dhashay ee ninkeedu Talyaaniga joogo ee ilmaheedina baasaboor Jarmal la siiyay iyadana la yiri Talyaaniga ku noqo waxa darbiyadii iyo train stationada soo seexo taasi miyaanay damqay kuwa Yemen jooga ee tuugsanaya dadkii Soomaaliyeed ee sharafta iyo karaamada lahaa ee udgoonka badnaa iyo gabdhihii haldaaga ahaa iyo timadheertii quruxda badnayd inay tuugsato yaa gaarsiiyay Muuse Biixi Muuse Maadar iyo Cabdi Faaruq baa gaarsiiyay iyo kuwa la midka ah Axmed Moodow Sharaf Sakiin oo dawladnimadooda hor taagan oo sharaftooda hor taagan oo karaamadooda hor taagan dadnimadooda hor taagan xagaad ku aragteen warniyo war waynu dhimanay oo wallaahi waynu dhimanay oo bilaahi waynu dhimanay dharka waa iska xidhanay oo adduunka Ilaahay sanka la inaga qabsadaa oo waa la inaga wasuusaa oo war aniga niyo reerkan muxuu taray aniga Ilaahay baan idinku dhaarsan ninka Soomaaliyeednimada ku qanacsan iyo ninka Puntlandnimada ku qanacsan ee diiday Soomaali weyn hanyarig wuxuu yiri ninkii jiray nin hanyari ma hana qaado ninkii halaba hablaha la hadlee huluun bana ma soo taaga war ninka Soomaalinimo wax ku waayay ma reernimo wax ku helay 27 sano ay qiiqda hayaan oo shacabka Soomaaliyeed afduubeen maxay heleen eegay maxay heleen bal maanta waxay heleen ii sheega Somaliland ma laha waa Soomaali baan ka go'no waayahay Puntland ba soo booday maamulka dawladda xarigaan u jarayna waxay ku fiican yihiin Cabdi Faaruq shacabkan ka yeelayni shacabka yani sumbaan shacabka lagu durinay haduu awoodo wuxuu dhilaa calanka xitaa waa bedelay laakiin waa shacabkan ka aqbalay laakiin shacabka waqooyi waa la afduubay oo waa la majara habaabi waxna isma dhaamaan musuqmaasuqa diimindaabiyada lugooyada dhiiga shacabka hooyada Soomaaliyeed ilmeynaysa cashuurta la guranayo waxa lagu tarkifalayo nacaladii Allaah ku soo degto baan ku ruuxi Soomaali kala gooya wixii ummadda Soomaaliyeed lugooyo ku aan nacaladii Ilaahay ku soo degto Ilaahay baan u baryaynaa Rabbi meel daran iyo meel daadaysa ka toob eegay war gobonnimada iyo sharafta iyo dadnimadu waxay ku jirtaa Soomaali weyn war calanka buluuga baan sharaf ku leenahay war markaynu gacmaha is qabsano baynu sharaf yeelanayna
war markaasaynu xabashiis ka celinayna war markaasaynu kenyatis ka celinayna halkana talo waxaan u marinayaa walaalaha onelef waliba madaxdoodii ugu sareysay baan xalay daawaday clip ay duubeen oo Facebook dhex maray ceeb iyo sharaf xumayna idinku tahay on olefay inaad sida waxyaalaha qaarkood ku hadashaan laakiin anigu waxba idin oran maayo laakiin talaan idin siinaya walaalnimo onelef oday weyn oo cira leh oo guddiga ugu sareeya onelef wuxuu yiri magaca ogaadeen iyo bay dalkan ku maqan ninna loo joojin maayo kaasaana lagu doonaya eegi wuxuuna tirinayaa 100 qabiil 33 qabiil oo la degan Soomaali galbeed war hadiirniyo reernimo wax lagu helayo Soomaali waxa kale eliyay waa reernimo Soomaaliland waxa halka geeyay waa reernimo waxa Puntland halka maanta geeyay waa reernimo Jubaland waxa halka geeyay waa reernimo Soomaali waxa isku cuntanay waa reernimo magaca qabiilka ayaa Soomaali isku diray kaasaana lagu kala tagay kaarkuna kaas oo ahaa adan oday weyn baad oo waliba 70 jira aqligaagu ha shaqeeyo waan kulay aqligaagu ha shaqeeyo on elefay baqtiga ma cunay fuudkiisaan cabaa warniyo isma raacdade mana aqbalayno laakiin talaan sinay wuxuu ninki jiray hilaacyada bari iskuma heshida midun ku hagaag midun ku habdhabo ogaadeen inaad qaadataan wataadaan ogaadeen way dhulkana aad taadaan xabashi baa naga haysto Ingiriis baa naga bixiyay war ama magaca wada qaata oo ogaadeen iyo sidaa ku wada qaata ama magacii Soomaali galbeed ee Soomaali weyn oo dhan kugu raali tahay gari baa kula degan oo bartira kula degan oo dir baa kula degan oo gari baa kula degan ugudubirsi baa kula degan oo wax ilaahu aad barka beelnay karanaha wiya kula degan oo isaaq baa kula degan oo cid walba Soomaaliya baa degan oo Ciisa degan magacan ogaadeenaya waa qabiil qof walibana xanafta uu ka cararay tusaalana kun jeer baan idin sii meeshan Puntland la yiraahdo Talyaanigii Ingiriisku wuxuu bixiyeen Majeerteeniya maamulka Puntland markii la dhisay hadii la dhihi lahaa Majeerteeniya waxa ku soo hari lahaa nimanka Axmed Harti oo Moorcasa Maxamed Harti oo magaciide bahdaba sito Majeerteen magaca la baxay iyo warsangeli ilma habar Majeerteen baa ku soo hari lahaa halka dhulbahante kaski qabe leylkase awrtable gabooye yibro intuba waa ka bixaayeen meesha eegi Puntland baa sidaasana lagu wada joogaa magacan ogaadeenaya xanaf badan buu leeyahay dad badan baa ka haray waradoo heli kara Soomaali galbeed inaad la baxay oo Soomaalinimo wax ku doontid inaad tahay ogaadeenaya wax ku doonaya wallahi bartira kugu dhaweynaan ku raacay aba school baa kugu dhaweynaan ku raacay gari baa kugu dhaweynaan ku raacay qabiilna qaran ma noqdo waxa Somaliland lagu haysto ay leedahay waa go'aynaa xuduudkii Ingiriisku noo dhigay baanu soo goosanayna inta kalena waa qafaalina dadka kalena waa qafaalina tiibaad wadan xaqiiqaduna taa way aad idinku fogaan maayo idinku dheeraan maayo laakiin mid baan idin sheegay eegi qaran baa ka wanaagsan intaan magac reer aad wax ku dooni lahayd idinkoo yaa Soomaali galbeed baanu nahay Soomaali galbeed baanu wax ku doonayna Soomaali Maxamed oo dhan baa kula safan laakiin markaad ogaadeen iyo tiraahid adeer cid kale iska day ana ka haray eegi ana ka haray markaan kulay Puntland iyo inta ku hareersan iyo qabaa'ilada aad ku abtirsanaysid baa wallahi ka haray markay inta qabiil wax ku raadinaysid qarannimo wax ku raad Soomaali galbeed wiilka jooga Gaarisa iyo wiilka Jabuuti jooga meesha la yiraahdo Muruxle obox xagga ka sixigtay Muruxle ayaa kula dagaalamay xabada kula riday karaas asayr iyo suqadara jooga xabada kula riday war dadkan horta Soomaaliyeed in ka harta ku dhacday maxay tahay war adigoo weel weyn heli kara oo Ilaahay ku barid maxaa qorofad yar horta u soo qaataan oo waxa weeye ugu bariya tagtaan adigoo weel weyn helaya war Ilaahay dad bariyaysid weel weyn baa lagu bariyaa meel waasacana waa la tagaa Ilaahay gacantiisu way weyn tahay wax weyn baa la weydiistaa eegi wixii ka horeeyay dadkan meelaha ka soo qeynin jireen deedaguma dhigi jiray laakiin niman weyn oo odayaal oo onelef ka tirsan markay oo degarku cadigay oo 70 jira oo Soomaali waxay hayd u soo joogay inay halka la soo fariistaan
ogaadeen iyo wax ku doonayna oo waliba ku hanjabaan cidna loogu joojin maayo waniyo malo wax haduu tamar leeyay isaga isku taagi lahaa haddii reernimo wax tarayso Soomaali baa horumar ka gaari lahayd Puntland baa samada gali lahayd Somaliland baa samada gali lahayd galmudugtana cirka mar lahayd haddii qabiil wax tarayo qabiil wax lagu helay Soomaali oo israacda oo walaalowda oo gacmaha isqabsata oo jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya dib u soo noqoto mooyaane sharaf idinkuna yeelanaysa guushiinu mar walbana waa idinku soo celcelinaa guushiinu waxay ku jirtaa oo nalafay Soomaaliya gacmaha isqabsata gobonnimadinu waxay ku jirtaa Soomaaliya gacmaha isqabsata inta shacabka Puntland iyo shacabka Somaliland aad u xeerinaysaa nimanka daalimiinta ee Muuse Maadar iyo Cabdi Faaruqna horumar gaari maysa waad leedihiin Puntland waa xun tahay oo Somaliland waa xun tahay shacabku ma xuma ee waxa haysta xaraan kuna xaraamiin oo Ilaahay ka furtay oo wada dijaal awar oo fircoona wada haysta oo xabashida ka amar qaato dijaal awar ba xaraan ku haysta gabigooda shacabka Soomaaliyeed waa xalaal min mashriq ila maghrib jigjiga ila gaarisa ila Djibouti shacabka Soomaaliyeed waa dixiin waa dad wanaagsan oo walaalnimada iyo Soomaalinimada ku dheertay eegi laakiin daalimiin baa haysta way afduubin marka waxaan leeyahay oo nalafay waanu idi jecel waanu taageersan laakiin billaahi calaykum aqligu noo shaqeeyo oo Soomaali galbeed wax ku doonto Soomaalnimo wax lagu waayeen reernimo wax lagu ma helo dadkana ha caburina de wariye dadka adeer khasbina nin guriga kula degan oo kula daaqaya oo geedkii iyo ceelkii aad wadaagtaan baad leedahay dhulkan ogaadeen yaa yaa ka yeelayo oo de ka aqli liita ilan aqli weyn u shaqeeya maxaa yaa Soomaali isku diray Soomaali maxay ku kala dhimatay qabiil bay ku kala dhimatay Soomaali wallahi baan meesha yare maamulka yare odayaashu dhiseen barkii hore de lagu talagalay dawladnimada lagu sugo ee marba daalinku imanayo haddii la dhihi ama jeerteeniya adeer waa lagu kala tagi lahaa Soomaalina qabiil baa kala yiri Muqdisho la wada joogay dawlad baa dhisnayd kacaan baa socday liin baa la kaadsiiyay cirka la mariyay adduunkan ugu sareeynay maxaana kala daadiyay fiirsi kaar baa la marsaday qabiil ah niman kuraas doonaya oo iimaan la'aan hayso ayaa saad qabiil u marsaday dadkii kaas aan lagu kala tagay idinkuna kiibaad wadaan 27 sano in ummadda Soomaaliyeed qabiilka ka soo daashay waxay maanta Soomaaliya u dhismilaadahayna waa qabiilka marba reer yar baa oranaya hal qanciyo reer hebel waa lagu degdegay may waa laga degdegay may eegi idinkana intaas idinka baxaya ummadda Soomaaliyeed waxa leeyahay war dawladnimada hala taageero war qarannimada hala taageero war sharafteenu waxay ku jirtaa wallaahi waxay ku jirtaa sharafteenu gacmaha aynu isqabsano waad aragtaan maanta Muqdisho soo dhalaalayso caasimada Soomaaliya sida dad waxay ninkii meeli bugtaa isagay balbasha dad baa diidan Muqdisho maanta inay bilaa qarax noqoto eegi xagaanu kala marayna waa kaaf iyo kala dheeri iyo kaan u dhigtay oo ma nin baa maanta wuxuu ka aroonayaa Muqdisho inay nabad noqoto dadkan xoolaha yeeshay caloosha waaweyn ee 10 bakhaar iyo 10 dabaq leh ee afarta dumar ka qaba ee ka ab saboolka ahaan jiray aan waxba haysan xagee wax ka keenay adduunyo fil basar wal aakhira fil amal waxay u baahan tahay in la tartiibiyo la shiiro la baaro xagee ka keenay baraawe markab baa ka degay maalintii labaad la leeyahay waxa saaran dhisma saaran madaafiicda culus oo furfuran iyo rasaas baa laga dajinay xagee lagu weeraraya hubka yaa lagu dilaya qof Soomaaliya inay wax gaadho anagu ma ogolin inta aan midnimo qaran dalkana qaar ba koreey dawladdu war kama hayso warde dalkan wadankan aan maanta joogo Yurub haddii wadada qof wax ku sameeyo booliska oo aan soo gaarin baa shacabku qabtaayo telefoon diraan xaafad kasta security beleed markaas boolisku yimaada eegi dalkan dawladan kaliya ma ilaalin kartee waa dal 27 sano bahala galeen ahaaye oo mas iyo abeeso iyo goodaado iyo dabaq saqaf iyo dhurwaa iyo dhidar iyo libaax iyo harim cad iyo abguris iyo abeesooyin iyo masasbaa ka buuxa dawladdu markay sidaa faraha u geliso oo bahalkan liyaado baldoosarka saa loo geliyo wax badan oo bahala yar bahalka ka baxay baalaas weyn shacabku qabtaan
إيه نبض إيه نلول بالي هذا دولة وحيوصل شيء ده ضلك إيه ضدك معها إن شعب دولة كلية اللي وش ده شعب كلفتك وشعب كبرها وين مركب دبار بطرع oo ay soo ogaadaan gudihiisa waxa ku jira gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose la socday oo taagnaa meesha eegi waan shacabku u dabaasha reer Baraawe dad dabaasha yaqaan weyn reer Baraawe fariintan ku marnay waxay tahay markabkaas wuxuu hayo iyo wuxuu sidaa la sooga dawladana ha loo sheego ha loo ogeysiyo annaguna halkaas aanu marnay dalkan inaga wada leh wallahi farmaajo dalkan male oo xasan cali khayr male oo dawladda maanta jirtay nabad iyo nolol male inaga iskale waa la wadaagnaa kaliya waxayna dheerihiin hogaanku inoo hayaan inkastoo nin gees iyo rag geedadeeyay hadaan garab kala la qaban guri oodi maayo war hadaan la isla qaban wuxuu yiri hadaan la rogin rag baan helin eegi waa inaan garabka isla qabanaa وين دولة وحي حتى دولة وبني آدم وي dadka maamulayana waa bini aadan khalad baa ka dhacaya waxba ka hoos baxaya waxba la isdaafinaya meesha masas baa ku jira shacabku waa inay dhexda xidhaan eegi waa inay afarta koona ka istaagaan waad ogtiino reer turkimeenu ka liidana ma turkimeenu ka liidana turkiyaga dalkooda badbaadiyay madaxweynahoodii oo carar ah oo labada cagood wax ka dayo kayn galay baa inan yar whatsappkiisii u furay markaas whatsappka inankaa yar ka soo hadlay haddaan habeenkaa inankaa yari aanu ahayn daacad ama dalkiisa jecleen miyuu soo hadli lahaa Erdogan shacabku ma dibadda u soo bixi lahaa ma madaafiicda la isu dhigi lahaa maxabadda la iskaga xijin lahaa shacabka ugu dhacay militariga guryahoodii lagu dhacay iyo xarumahoodii lagu dhufaydo leeyahay xabad eegi inaga marka maxayna haysta maxaa inaga inaga dhiman soo dad ma nihin oo dad islaam ma nihin oo Soomaali ma nihin oo gobti la yiqiin ma nihin oo dadkii ay ka dhasheen Sayid Abdullah Xasan iyo Sheikh Bashiir iyo Ilaahu Beerk Bene Maxamuud Xarbi iyo Ismaaciil Mire iyo Axmed Guray iyo Xawataakiya dhagax tuur miyaan ahayn gobonnimada iyo sharaftii may dhamaat war gobi waa jabtaa gunisa waalid gobtu way jabtaa gobtu laakiin gunisa waalid eegi sharafta iyo karaamada iyo dadnimadu waxay ku jirtaa gurigaaga inaad ka soo bilowdid oo qashiga ka soo qaadid dawladda Soomaaliya maxay waxa ay qaban way dawladda ka baxa idinku maxaa qaban kartaan maxaad adigu qaban kartaa qof walba weyn is weydiiyo adigu maxaad qaban kartaa anu waxaan qaban karaa bulshada in halka ka wacyi geliyo waxaan qaban karaa dalkayga inta tagay inaan tuuta qaato furinta ciidanka aan galo waxaan qaban karaa iska wax u qabsay inaan wax ku dhiso oo subax walba ka laho inta yeenka badan baan qaban karaa qof waliba waa in is weydiiyaa 10 shilin aad haysid maxaad qof walaalkaaga u tari kartaa maanta qof walaalkaaga maxaad u tari kartaa maanta oo u qaban kartaa dadka walaalaha Soomaaliyeed la qaxinayo guryahooda laga qaxiyay eegay ila leeyahay barakacayaasha maxaad tari kartaa war waa inaynu gacmaha is qabsanaa waa inaynu walaalownaa waa in sharaftii iyo karaamada iyo dadnimadeenna aynu soo celinaa eegay gaarsiiyay in xayawaankan qabyaaladu dulatiya bukaan socodka wax ka dhacay adduunyada war miyaad u haysaa buu yiri wax ka dhacay adduunyada war miyaad u haysaa eegay Soomaaliye gacmaha hal is qabsado oo hal walaaloobo oo ummadda Soomaaliyeed waa mid oo diinteenu waa mid oo dhaqankeenu waa mid oo sharafteenu waa mid iimaanka Allah idigu soo celiyo ulal amrigana waxaan leenahay horta ulal amriga ducadiisuna waa kacda habaarkiisuna wuu kaca siyaad bara wuxuu yiri iimaanki baad bashanay iimaanka Allah idinka qaad wuxuu kaloo yiri dal baan ka tagayaa ee dad ka tagi maayo labadiiba maanta waa la hayay waxaan leenahay marka ulal amriga iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed war ummadan u ducay jaala madaxweyne habaar horay qabaane habaar bay qabaan iyagoo shaashafka u taagayo isbarmuutada dibadda ku cabayo jaamacaduhu ay waxa weeye lacag ku qaadanayo iskuulaadkii bilaashiin oo dhaqaatiirtii iyo adduunku saas u yaacayo bay iimaan la'aan qaadeen u ducay oo waxa taada Ilaahay iimaanka idinku soo celiyo oo Ilaahay wanaaggiina iyo dalkiina haydo tuso bismillah oo karaamadiina iyo sharaftiina Allah haydo tuso oo isunaxa
oo isu naxariista ilaahay wuxuu yiri isu naxaan idin naxariiste war dhulka isku naxariista ana samada idinka soo naxariisanay xanuun iyo qabyaalad iyo hadaa qofka bukaan socodka hadaa salaam calaykum laba kalmood as weydiisaan marka uu isdhiibay in qabyaaladu qurun tahay baan ku sheegay difaac yar xitaa male qofka bukaan socodka kulama doodi karo runta marka uu sheegto leeyahay wallahi waa run bu qorray dadkeena xanuun baa laay dadkeena fakhri baa laay dadkeena gaaja laysay dadkeena xanuuna laay dadkeena sixir bar baa laay hooyooyinkii Soomaaliyeed iyo aabayaashii Soomaaliyeed Addis Ababa baa dhakhtar loola aadiyay Abdullahi Jafar Sulay arrimaha ganacsiga ka soo wada hadal arrimaha ganacsiga la ilaaha illa allah muhammad rasuul arrimaha ganacsiga ka soo iyo amniga Soomaaliland maxay iyo musabbix musamaada ya danaha labada dal iyo xuduudaha baanu khamkamka iyo qamshaxda baanu soo wareysanayo dhaqaalaha iyo ganacsiga dhaxmariyo amniga nin allaale ninkii la doonayo Hargeysa laga baxaa maalin walba nin oo neelafa oo mujaahida oo dalka u shahiidaya baa laga baxaa Hargeysa oo Boosaaso laga baxaa oo Garowe laga baxaa oo Burco laga baxaa eegi aqligiinu Soomaali anagu daalimin oo nasanmayn oo xiiqimayn oo wallahi saasaanu 9 ka u xiimayna oo inta naftu nagu jirto waa jihaadina oo haday dagaal noqoto xitaa waa dagaalamayna sidii Soomaali la isugu farmaajo saacadu ka fadhiistay farmaajo Xasan Cali Khayr saacada ka fadhiistay farmaajo Xasan Cali Khayr war Sheekh Shariif baa yimi waa tagay Abdullahi Yusuf baa yimi Allahu naxariisto waa tagay Abdi Qaasim baa yimi waa tagay Xasan Sheekh baa yimi waa tagay farmaajo yimi wuuna tagaya xanuunka loo waayay wada bukaan socodka Umar Abdirashiid baa mucaarad ku ahay oo aanu diidanay ninkii badda iibsaday oo ku niri anaga niri kuma rabno qabyaalad Xasan Cali Khayrana waan taageersanay eegi Xasan Cali Khayrana qof waliba wuxuu galo iyo wuxuu gudaan anoo ku taageerin ninkii qof Soomaaliya wanaag u galo oo warxa Hindiya iyo meesha riyado shishiris maxaabiistii ku jirtay Soomaaliyeed muxuu Xasan Cali u soo dayn waayay Xasan Sheekh muxuu Umar Abdirashiid u soo dayn waayay maxay u soo day dawladda hore mucaarad baa ku hay sax mucaarad baan ku hay ana hadda idin hor taaganooday mucaarad baan ku ahaa muxuu noo qabtay Xasan Sheekh Umar Abdirashiid muxuu noo qabtay badda raggii iibsaday ma ahayn raggii jigjiga intii ka dageen laha jigjiga waa Itoobiya madaxweynihii ugu khasaaraha badnaa ee Soomaali soo maray Xasan Sheekh buu ninkii jigjiga intuu tagay yiri jigjiga Itoobiya ka mid tahayo bal federalismka iyo wanaagga leedahay iyo sida Itoobiya u hormartay jigjiga ma Itoobiya leh taariikhda ugu xun ee Soomaali soo martay madaxweyne Soomaaliyeed oo ka dagay jigjiga yiri jigjiga waa Itoobiya Xasan Sheekh buu ummadda Soomaaliyeed lagu laayay meesha yiraahdo meeshii sheegnay ciidanka Soomaaliya lagu leen jiray gobolka Gado ka mid ah iyagoo meydkii iyo shacabkii meydkii sida u yaaleen buu Kenya ka dago Nairobi ka dagayo kufaar la laayo Kenyaati iyo cadow oo soo weeraray buu u rukuucay oo u sujuuday markaasaan marka taageeraano maxaan ku taageeraa Umar Abdirashiid kii badda iibsaday ee ummadda Soomaaliyeed baddeeda gatay ee haddana ummadda Soomaaliyeed dawladnimadeeda hor taagan miyaan taageeraa maxaan ku taageeraa mareernimaan ku taageeraa iyo qabyaalad iyo ilmaadeer baan nahay oo harti baan wadanahay baan ku taageeraa miya adeer aniga taageeradayda cidna ugama hamranayo qofkii wanaagsan waan taageeraya ilma xayawaano kii xunna waa ka soo horjeesanay eegi sheeka yaro jilicsan iyo qabyaalad yaro niica iyo su'aasha dambana qof dambe uu weydiin kara xitaa ma jiro qof dambe uu weydiin kara ma jiro caawaan idinka qarcinay Xasan Sheekh daalin buu ahaa ninkii jigjiga yiri Itoobiya ka mid tahay buu ahaa ninkii shacabka Soomaaliyeed oo la laayay Kenya intuu ka dagay kufaartu u sujuudayay buu ahaa Kenyaanka dadkayga laayay eegi Umar Abdirashiid daalin kala weeye Xasan Sheekh xagga ka sixiga oo ninkii badda Soomaaliya iibsaday gorgortanka galiyay badda Soomaaliya damiir baydan lahayn oo qalbiga idin wada taagan oo waad ilowsho dhowdihiin oo Soomaaliya maalin walba nin baa tuudin yimaado lug iyo gacan gooyay markaas maalinta dambe idin soo qosla markaas aad u ooydan
aniga ninkii abaal ii galay ninkii abaal ii galayna waan ogay ninkii aniga ilu gooyayna waan ogay wuxuu yiri libaax nin galan iyo nin galadayba og ninkii aniga wanaag ii galayna waan ogay xasan cali khayre waran murursada ma hidde hawiyana ma hidde eegay xasan cali khayre Soomaaliyeed ku taageeraya darbiga qabyaaladana waan ka soo booday xitaa halka caawa waxaan u maranayaa kuwa xun oo aan isku naadinahay oo meelaha niicda ka soo guro de Puntland ka wadno reer wadaagno halka yiraahdo Umar Cabdirashiid baad ku taagantahay xasan cali khayrna waa taageersantay xasan cali khayre Soomaaliyeed ku taageerano wanaag uu qabtay baan ku taageeray maxaabista shiishada soo daayay baan ku taageeray kuwa Hindiya uu soo daayay baan ku taageeray kuwa Ethiopia iyagoo 20 jir ah galay 50 jirka ka soo saaray baan ku taageeray xasan cali khayre Soomaaliyeed baan ku taageeray maxaan ku taageeray Umar Cabdirashiid maxaan ku taageeraa ma aakhiru aborkiga xigay yani war qofku yiri sinaan mayn adna buuri sareyntiis ninkan tayda qaabilin ninkan tayda qiimeyntiisana ma qaabilo adeer ninkan aniga tayda qiimeyn wallahi tiisana ma qaabilo eegi ninkasta wuxuu geystay un baa loo gudayaa sax qabyaalad Umar Cabdirashiid baa aniga Cabdirashiid baa Umar Cabdirashiid waa tuug anaga idin la hadeer dib dambana ima weydii karta wallahi dad mar dambe ila timaadaan nicda kuwina xunxune aan meesha ka wada nimi wallahi blog baan idin saaray xanuunka loo waayay ee qabyaaladu dulootay anigu adeer cidna uma halkaas aan idin marnayna waxa la leeyahay waxaan u dahayn xasan cali khayre ilaahay baa u soo diray dalkan de maanaga anagu samada laga naadiyo magaciisa wanaaga iyo sharka qof walbana saacib qadarka alla korbay ka qoran wanaaga maanaga alla doonana ilaahay baa la doontay hadaayadana ilaahay baa iska leh farmaajo kuwina xasan sheekh qusuxsanow idinka Axmed Ishaga adeer ninac haylo soo dooniyo sheeka jirsan nin waxa dhageystay mihi qabyaaladdan iyo reernimada waan ka soo booday hadaad ila timaadaan ashaadan loo xidin ku dhigay anigu ma yihi warta adeer waynu isbaray wayna saqoon wuxuu yaallo yaa rag u kala warramo wax isma yeeleen adeer anu sheeka yar oo jirsan iyo niic yar iyo taasaan ku qadayn lahaa de adeer aan ka yimi boosaas deeqaan ka yimi oo waxa weeyeen iyo Puntland oo aan u mushxarad lahaa u shumbira waaqleyn lahaa haday u soconayso haday deeqayso Puntland baan joogi lahaa tii Cabdi Xaaji baan halka ka waran lahaa sida dadka qaarkii kan xunay xanuunsan magaciisa balaayada magaciisa lama rabe ee meelaha ka soo ooyay iyo dadkan u shumbira waaqleeya Cabdi Faaro Puntland bay aan u shumbira waaqleyn lahaa laakiin anigu Soomaalinimo wax ka sokeeya oo aan haba yaraatay laga hadli karaa ma jirto teeda kale deedu kuba taageera ninkii Umar Cabdirashiid loo ooyay iyo ninkii Xasan Sheekh loo ooyayo de adeer soo taageer adigu ninkii Cabdiwali gaas loo ooyayo de soo taageer ma ku haystaan ninkii Muuse Maadar u ooyayo soo taageertay laakiin aniga sheeka jirsan iyo bukaan socodnimo iyo in adeerow ka deg waa laga dageyntii munadaayi uu naga tagay munadaayi maxaa dalka ku soo wareejiyay maxaa xasan cali khayriye farmaashada waan fashilmay ee ila fashilan way marka si loo eego xasan sheekh baa la qaatay oo soo dib buu uga fadhiistayba oo soo meelaha wax mucaarada iyo wax dibidaabeeyay lama arko laakiin Umar Cabdirashiid wuu soo dhigtayba nigis buu ku wareegaya magaalada wuu ceeb buu soo tafaxay imaaraad lacag ka keen niman xanuunsan oo meel halkan joogo ka yaacay ceelbuur ka yaacay oo xanuun oo bukaan socodon kan mahad salaadiyo ay ku jiraan lacag si shirif sakiin bisbaas marba mid kabay Axmed Madoobe iyo Cabdi Faariq sugu yar niic iyo riwaayad buu nagala dhameelay waridinkuna qabyaaladina taageera oo bukaan socodkiina noqda oo dhinacina deegaanka ka taageera aniga niic xaylay man anigu Soomaalinimo wax ka sokeeyo ka hadlayaan ma jirto imaba deeqda wax kale yaa nooga fiicano nooga baalkaysano hadii reernimo wax tara siiyo qabyaalad Puntland maxaa ku dhex jira 27 sano marka taagnino Puntland maamulka Puntland la maxaanu soo kororsanoo haysanaa arurtii reer Puntland waa bilaa iskuul hal iskuul oo bilaa shamale dhakhtar caafimaad male xanuunka loo waayay Soomaalinimadu lacag ma hadde anu xamar waliye ma arag xanuun laakiin dawladna waliye ma arag aan dhahay haddana dawladnimo aan rabaa iyo qarannimo maxaa waa bilaa iskuul niman gar waaweyn oo daalimiin oo Sacuudiga iyo Imaaraadka nooga yimiyo
قرحية يبقى يهوج يحسوق ومضى الصوماليين وكاني أو لبي لا تن منهج وتوكل كان بعضك هيستا عارف ما ضره ميرو بنين باكستاني يهندي حنو تدخل مقاسك كويلا وسات شوكته قفك حنوسنا دي الصباح لو قاضية محانو فايدنوها يسنا بتلان واي دقاقد ويدوش محانو كويس يسنا بتلان بقول يا لواتن بروجكتيف dad aqoonyahan keenay oo faham oo horeyso faham saciid waa gabar Soomaaliyeed oo European Commission ka shaqeysa oo deegaanka Puntland ka soo jeeda laakiin reer hay'ad jawhar maxaa reer bay soo taagay maxaa noo haysaa bali qabiyaalad baa meel walba qabiyaalad baa taal shacabkuna waa isku wada cudur shacabkana dawladnimo rabaan shacabkana wanaag bay rabaan caafimaad bay rabaan iskuul bilaash ay rabaan wallahi hooyada hargeysa joogta iyo hooyada boosta joogta iyo hooyada muqdisho joogta waa isku duruuf been bay la isugu sheekayaan nabad baan war nabada shacabka keenay waa run shacabku inay kala fiican yihiin oo qaarna soo qabanaya ninkii miinada wada oo maalin waxaan arkay muqdisho degmo kamid ah shacabka soo qabtay nin raba inuu qaar habeenkii dadka baadho dadka laayo wax qarxiya wallahi degmada halka ay ugu soo qora hal wadaag inay hayd baan u malaynayaa degmo kamida muqdisho waa la soo qabtay shacabkaana soo qabtay eegi shacabka soo qabtay marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed war walaalnimada iyo gobonnimada iyo sharafta waxa ku jirta gacmaha inaan isqabsano waligiina hadaalina dawladnimada hakada waxaynu u ordaynaa maanta ee midnimo qaran u ordaysaa waa ubadkayga anaga bila mustaqbal noqonay ubadkayga inay bila mustaqbal noqdaan baan u diidana gabarda Soomaaliyeed inay ooydaan u diidana raxa xanuun daahir cala sow waraniga way taqaana wallahi aqalkaagan kugu imanayay billaah naag yooxmi aniga halka nixay iga soo qorin in ilaahay yaab ku keeni oo wallahi baan kuri daahir shaydaano aniga niyow sheekay yaro jilicsan iyo naac iyo wallahi ma qoro dibadda isku soo baxayna waad taqaana magaalada yare qaar maxay bareeda maalin walba bareeda taga wariyax ma ku sheegaadeer wallahi ina istaashoonka ku istaagay bareeda oo ilaahay yaab ku keeni anu sheekay yaro jilicsan iyo ma gabadh baad haystaan gabdhaha timaha jiidan jirtayo iyo ciyaalkii inanka yaraay xidig nuurshay muqdisho كيس فنان كاي ما هذه استانية هذا راني وحبة دول كي جميع يالين والله هذا الناعي لسدونتي داير شيطانه هذا والله الناعي لسدونتي إنا مبريضك وقوي من با والله السلادي بتصوع على علي دون تايمات شوكت والله السلادي بتصوع على علي سداهرو وبالله وطلع وضد صوت رساية ما تشوكت هوي كلمة نبوع عياني هي شغل إنا حيوانه أنا وحال إيه مركو مادة الصومالية وأنا رفاقي لا شو أنا يادو وسكرين ناي أنا ما هي فنانين تناد حوق جايو ملاها سوتك هذا بريدان كوي من دوناي صدق والله أنا كوي منو إلهي كوكيني شيء ده وسوسو شعب الصومالي حالي والصومالي والقرية هاد نقوي قرية هاد نقوي لبعسي قرية هاد نقوي si kasta waa la isu eriyadayo reer dawlad noqon waa federalismkuna waa kala qaybinta shacabka Soomaaliyeed kala qaybinta shacab waranu ma bootaye wallahi uu yaqaan aniga niyow anu sheekay yaro jilicsan iyo waxa anigu ma qoro ninkii naac ila yimaado noocaas oo kale guryahan ugu dhacaa wallahi eegi war toban wuxuu leeyahay Facebook buu leeyahay waan ogahay waxa la yimid Soomaaliyeed qabiyaalad waxba tari way قبيلة وحبة ترويدي فدراليسم كانوا كلا جوينتهم مدة الصوماليين شعب الصوماليين اللي كلا جويو أو اللي سكدروا ويا فدراليسم وأنا واحد حبشيده يقول بدي ساعة فدراليسم مدنا ويدين شيء يا شعب الصوماليين أنا رو ضد ظلم هالنصارينا دجان كبوت لان شعب ككونول ما على فدراليسم من الدونيان نمن أور كوك أحسن يدونيان يجروا ودت كهالك كوك أبطال أيها واحد شعل أو سياسيين تا شعب كجروا ونرهالي كماها كوا بوصصنا رالي كماها شعب كديان كبوتلان كنا ولا فدراليس مرة ما أضيع فروله يو عبد فاروق أن نمك سياسيين تا يسعيد محمد راجع ينتا توجد أصواتها أنا وما دورن هنقول شاب بضينين بوتلان بفدرال كواتا بوتلان مو وضعنا
من الدونينو waxaanu doonaynaa muqdisho iyo boosaaso inay isu furanto 18 gobol ee Soomaaliya federalismka xalaashaana waa gobol walba budgetkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo khalkhalkiisa iyo qamshaxdiisa iyo arrimihiisa inuu goonidiisa u haysto wixii dawladdu tari kartana tarto wixii dawladdu ka qaadi kartana ka qaatay sidii Soomaaliya ahaan jirtay eegi taasaan anagu doonaynaa laakiin federalism reer la isu raaciyo ya hawiyaha gobolada dhexe daaroodka bari daaroodka koonfur isaaqa waqooyi daaroodka waqooyi waxaana raali kabanin kullina waa qabyaalad raxaweynta koonfur waxaas waa qabyaalad waa reer baa la isu raacinaya dadka mana shaqaynayso eegi gobonimadu waa gacmaha is qabsano khayr iyo baraka idin rajeenaya waa salaam iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed ilaahay dambigiina iyo dambiga waalidkiina ha dhaafo wixii aan asiibay ilaahay baa ku mahadle wixii aan khaldanay naftayda iyo shaydaan way khayr iyo baraka idin rajeenaya Soomaalinimada dawladana hala taageero oo shacabku gacmaha is qabsado oo reer Muqdisho si gaar ah aan la hadlayaa caasimadda inoo ilaaliyo in ma xayawaan oo dhan bay ku wareegay warsan iyo nabaadiino saara qaran waa ku salaamay dhamaan ururka midnimo qaranka ka salaamaya Ahmed Boss oo ah madaxa Mareykanka gudoomiyaha guud ee Mareykanka Ahmed Boss Young Boss saara midnimo qaran Canada saara qaran Canada Sofia ilaa wadbeerka Belley nalka nuurka jarmalka dhamaan saaxiibkay Cabsan Gentleman mataankaygii caawa hawl yar buu ku maqayay safar buu ku jiraa soo duceeyay isagana insha Allah bidnillaahi kariim inuu nabad tago magaaladiisii uu socday dhamaan shacabka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay gorgobonimadu ha waarto walaalnimadu ha waarto sharaftu ha waarto guushu waa dhowdahay waa in yar baa inoo haray gacmaha la isqabsado guuliyo gobonimada ka tagaya agaasimaha guud ee midnimo qaran xogayaha guud ee midnimo qaran Cabdiwahaab Shiil baan ka salaamaya Ibrahim baan halka salaamaya waxaan halka salaamaya Maxamed Soomaali dhamaan midnimo qaran oo dhan baan halka salaamaya khayr iyo baraka idin rajeenaya warsan iyo nabaadiino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh